guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka baarlamaanka lixaad ee Puntland ku socota musharaxiinta mucaarad iyo muxaafid labadaba ogeysiin bulshada reer Puntland ogeysiin isimada SSC Khaatumo ogeysiin maamulka SSC Khaatumo annagoo ah isimada hoos ku xusan waxaan kowdii bisha 11aad 2023 soo saarnay guddoon isimo oo ku aadanaa ismariwaagii ka dhaxeeyay siyaasiyiinta danaynaya inay u tartamaan xilka madaxtinimada Puntland go'aankaas oo noqday kii la isugu yimid horseedkana uu noqday in dalku aado doorasho annagoo ku hanweynayn warina ku hanweyn in Puntland ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah la isku raacsan yahay sharciyadna ka hesha dhammaan darafyada ay khusayso ayaa waxa soo kordhay tan iyo intii doorashada la aaday arrimo lagama maarmaan ka dhigay inaan soo saarno guddoon labaad sida cabashooyin ku aadan guddiga xalinta khilaafaadka arrimaha ka soo cusboonaaday maamulka SSC Khaatumo iyo baaqyada iska soo horjeeda ee murashaxiinta xilka madaxweynenimada Puntland kadib khudbadii madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani uu xalay oo taariikhdu ahayd 28 bisha 12 sida rasmiga ah ugu shaaciyay musharaxnimadiisa xilka madaxweynenimo ee Puntland kuna sheegay in doorashada ay ka qayb galayaan 17 xildhibaan ee reer Khaatumo ee ay go'aanka wadajirka ah maamulka iyo isimada SSC ka soo saareen inaysan matalaad ku yeelanayn siyaasadda Puntland waxaan xiriir la sameynay isimada SSC Khaatumo iyo madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo labadaba inoo xaqiijiyay in go'aankii maamulka SSC Khaatumo iyo isimadoodu uu sidiisii yahay waxbana aan laga bedelin sidoo kale waxaan la tashi la sameynay dalladda ururada bulshada rayidka ah Punsa iyo xarunta cilmi baarista Puntland PDRC oo horay u kulmiyay qaybo kamid ah waxgaradka Puntland kana soo saaray talooyin dhaxalgal ah oo ku aadan qaabka ugu hufan ee doorashada lagu geli karo haddaba maadaama isimadu ay yihiin asaasayaasha marjica iyo halka loo laabto xaaladaha adag annagoo u gudanayna xilka iyo mas'uuliyadda diineed tan isimnimo tan damiirka iyo tan akhlaaqiga ah ee naga saaran amniga wadajirka iyo habsami u socodka howlaha dawladnimo ee Puntland gaar ahaan arrimaha la isku hayo waxaan soo saarnay go'aanadan soo socda kuwaas oo ah guddoon isimo waxaan ixtiraamaynaa qadarinaynaa soo dhaweynaynaa go'aanka masiiriga ah ee isimada iyo maamulka SSC Khaatumo gaareen 23 bisha 12 waxaana guddoominay in reer SSC lagu tixgeliyo qaraarka ayaga tashiga ah ay wadajirka ku soo saareen waxaan bogaadinaynaa isimadii horay uga hadlay soo dhaweeyay go'aanka isimada iyo maamulka SSC Khaatumo waxaan mar kale adkaynaynaa go'aankii isimada Puntland soo saareen kowdii bisha 11 ee ahaa in doorashadu ay dhacdo 8 bisha 1 maadaama maamulka SSC Khaatumo iyo isimadoodu ay si wadajir ah go'aan ugu gaareen in aysan matalaad ku yeelan Puntland waa in doorashada lagu galaa 49 xildhibaan taasoo dastuurka waafaqsan ahna aqlabiyad ka badan tiradii ay ku ansixi lahayd doorasho ka dhacda Puntland oo ku qabsoomi karta 3 meelood oo 2 meelood xubnaha baarlamaanka una dhiganta 44 xubnood ayadoo la xaq dhowrayo go'aanka maamulka SSC Khaatumo iyo isimada waa in labada xubnood ee reer Khaatumo ee ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka ay baneeyaan xilalka ay ka hayaan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Puntland waa in marka doorashadu dhacdo maamulka soo baxa isimada Puntland iyo waxgaradka Puntland ay isaga yimaadaan dhamaystirka tirada ka bannaan baarlamaanka Puntland guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadku waa in xulista xubnaha baarlamaanka ay waafajiyaan saxiixayaashii rasmiga ahaa ee sanadkii 2018 wixii aan sifo sharci ah isu bedelin sida isim dhintay oo qof kale uu bedelay si looga gaashaanto kalsooni darro iyo kala aaminbax guddiga xalinta khilaafaadka waxaa korjoogteynaya guddi hubin ah oo ka kooban 5 isim ee kala ah 1 Suldaan Saciid Maxamed Garaase 2 Ugaas Cumar Geelle Maxamed Kanaac 3 Suldaan Zubayr Xaaji Maxamuud
4 imaam cabdiwahaab maxamuud guray 5 suldaan ciise maxamed ciise lambar 9 ammaanka puntland waa mas'uuliyad wadareed qof walba uu ka saaran yahay xil muqaddas ah in la wada ilaashadana ay waajib tahay sidaa darteed waa in amniga iyo xasiloonida puntland qof walba xil iska saaraa annagoo ka digayna wax walba oo khalkhal gelin kara ammaanka dalka ciddii ku gabadfashana dhinac looga soo wada jeedsanayo 10 waxaan si gaar ah saraakiisha iyo ciidamada qalabka sida ee puntland ku wargelinaynaa inaysan ku milmin siyaasadda waajibaadkoodana u gutaan si karti iyo hufnaan ay ku dheehan tahay gaar ahaan marxaladan xasaasiga ah allah mahad leh